maareeyaha dekedda agaasimaha guud ee dakhliyada madaxda labada custom dekedda iyo aeroboorka taliyaasha kala duwan ee fadhiyada ciidanka ilaalinta canshuuraha dhammaan agaasimayaasha maamulayaasha dhammaan intaan ka tegana raalli iga noqoto oon ilaaway waa wada salaamantihiin salaamullaahi calaykum waxaa maanta sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno maalinta furdooyinka caalamka oo ah maalin ku astaysan horumarka ay ka gaareen dowladaha dacallada adduunka ku nool runtii lama soo koobi karo wasaaradda maaliyaddu halkii ay ka soo bilowday markaan eegno iyo maanta inta lagu tallaabsaday wax la soo koobi kara maaha maanta haddii aan halkan inaan ka sheegno damacno waqtigaa nooga dhammaanayo laakiin ishaa macallina waxaan xasuustaa intii dowlad la agaagumayay kasoo bilow carta markii lagu soo doortay cabdiqaasim salaad xasan ilaa hadda waa la isku dayayay waa suurogeli weyde beenna ku sheegi maa hadda wasiirkaa ka hor fadhiya ismalihi intii wasaaraddu soo martay horumarka la gaaray hadda intii uu wasiir bayle uu gacanta ku hayay wasaaradda ayna kaabayeen dhalinyaro aqoon-yahanaahoo kala duwan oo khibrad leh wixii la gaaray wax lagu faani karo waaye maanta waxay maraysaa in aan gaarno in shaqaalaha dowladda iyo labada gole labada aqal iyo fulinta oo ah muxuu ahay wasaaradaha iyo ciidamada qalabka sida dhammaan ay gaaraan in 25 iyo bishu intaysa dhammaan mushaarkoodii loo helo waxaa dhaliyay juhdi badan maskax la shiilay aqoon la kaashaday intaas ayaa dhalisay ciidanka ilaalinta deegaanka ilaalinta canshuuraha dadku waxay yiraahdeen wuxuu uga duwan yahay booliiska kale wuxuu uga duwan yahay waxaas la sheegayo oo wasaaraddu soo ururinayso inaan nahay gacmihii la adeegayay oo muxuu ahay shaqadaas la qabanay nalkunteembo aan nahay ciidanka haddana ku xafida goobta dhaqaalahaas lagu aruuriyo dabcan waa caddaha marka inay yihiin laba hay-adood oo aan kala maarmin isku hal shaqo ah bulshadoodana u adeegayo marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo wax badanaa la qabtay waxna waa noo dhiman yihiin kow nooma joogaan inta dalkeennu ku tiirsan yahay inuu jaleeco wax dowlado kale oo nalamida oo waxay nooga duwan yihiin aysan jirin bulshadooda ka soo aruursheen qaaraamad ay ka soo aruursheen inta raja nooga jirto annaga awrku waa noo raran yahay geedigu waa noo raran yahay waana gaari doonaa insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeed waa dad adkaysi badan runtii ma dhicin caalamka mana dhici karto waadna ogaan kartiinoo buwaagtaad akhrisatiin dal burburay ee 32 sano 40 sano ku dhawaad burbursanaay ee nolosha haddana ka muuqata ay cajiib tahay dadka Soomaaliyeed waa dad dun leh
وادد محو هاي عجيب هو نلول محو هاي إسكا عقبسو أما تي هاد الدويل سمي محي هذي إسكا عقبسدي عمل هاد وحاوا يدد إسكاشده oo wada nool waxaad arki kartiin guriga kasta ee Soomaalidu leedahay dhowr qof iska imaanaysa badarka yaalay gacantooda dhinacooda ka gashanayaan caalamka kama jirto waa ogtiin badankii waxaan u maleynaa inaad aheedeen dadkii inta baxa banaanka aada anigu waxaan ka mid ahaa raggi aan weligood banaanka tagin oon diyaarad korin oo diyaaradaha ka baqaay oo wadanka jooga waxaan rabnaa marka gobonnimadaas waxay u baahan tahay in loo gogol dhigo in nafta loo huro in waxa aan haysanana aan ku fara adeegno waxa kalena aan raasano haddii rabbiga awoodda la ogolaado aad iyo aad u mahadsantihiin xoogaa yar muxuu ahay waxqabadkii iyo shaqadii wanaagsaneed oo la qabtay aan la jadbooday ee mawarbadni وإذا سلام يا مرلبات وأوهم بليين يا محو وزارة مالية وندين عنا الله كنا هاي دين عنا محو هاي وذا الشقين في عنو نقد حيسو مركب وحن رجينا إلهي إذا كيس سنة كان سنة كيس وقت كان أوكله أنو آد أبوت تيكرنا إن سنة ماذا آدي ذو ما سنتين